iyadoo xaaladda waddankaasi Syria ay maalinta ka dambayso ka sii darayso qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada Dimashq caasimadda waddankaasi ayaa waxa wariye Cali Seenyo uu ka wareystay Dictoresa Sahra oo ah dictorad Soomaaliyeed oo ku dhaqan iyadoo caasimadda waddankaasi Dimashq waxaanu ka xal wareystay xaaladda Soomaalida ee waddankaasi sida ay ku sugan tahay waddanka Suuriya ayaa muddooyinkan dambe waxaa taagnaa dhibaatooyin fara badan oo ay keeneen kacdoonnada ka curtay waqtiga hore waxaad moodaa maalinta ka dambaysa in xaaladda waddankaasi Suuriya ay ka sii darayso dhibaatooyinka ugu badan iyo tacadiga ugu badan ayaa haddana waxa uu soo gaarayaa dadka doolka iyo qaxootiga ku jooga waddankaasi Suuriya haddaba bulshada Soomaalida oo kamida iyaguna dadka waddankaasi ku dhaqan ayaa ah kuwa ugu liita ee aan iyagu lahayn marnaba dawlad ama cid u dooda oo ka dambaysa iyo cid ku booqata goobaha ay ku silicsan yihiin gacanna ka gaarsiisa haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay Sahra Maxamed Ismaaciil oo ah kamid ah dadka Soomaalida ee ku dhaqan waddankaasi Suuriya oo ah gabadh dhakhtarada waxaan weydiiyey waxaad ka warantaa Sahra waa sidee xaaladda Soomaalidu imanka والله حالة الصومالية ما كانت عدوى رمضان الصومالية حتى حافظها دبعتها أي تشوف تودك كتدين قارو حكوا قدوني حافظ الدين قارنا ويسوق حين قارو ولي ولا لا هاي واحد أخبار اللي جماعة هيو هذا واحد مشانا والله واصدق قفل بعض الله إن شاء الله ضدك يعني الصومالية ده أو حافظ الدين كل شيء صدق ما قفل انتي يا لاي يا صدق لقف فرد انت يا لا يا دلي دتك والله في ودي كان لما قرأنا أي وحي قاركود وحكوا إنسان سرر وحيالي كسر دعي حافظها قاركود وحكوا إنسان حبد لبض قرر دحلو ده يكود إنسان مركا لما قرأنا كرر لما بيجي سر قلبات بشيء لكن واحد قرأنا يسمل دجال كثيره دي كده كلام هو صفة وكود معنا هل كيف يكون إنسان waxay ku dhinteen xaafada Talbi saddexda qofba waxay yihiin reer Talbi oo waxay ka tirsantay markaa miya caasimadda Suuriya Dimashq waxa weeye xaafadaha gobolada looga baxo Dimashq weeye oo ah xaafadaha waaweyn ma aha xaafado yar oo la dhaho riiska Dimashq tuulooyinka Dimashq kamida guud ahaan dad intee leeg baa lagu qiyaasaa Soomaalida degan waddankaasi Suuriya والله إلا ما بكون صدق كل على غير يعني حد كتير عن ذلك حبينا كيرين لأنه سبب ما كتبت بحياة إما كم تشران لباتوين كني عد كوا أو شالي ده أما دولة الصومالي ده أما مملكة كلا دوان أو إذن الله صاحي ده أما ضد كاسي وحق عنه في ذي والله waxaan safaarad ahayn oo waxyaalaha safaarada nala qabta maahan cid kale oo nala soo xiriiday ama cid kale oo nasoo dadka ka soo wardoontay ma jirto ma hayno ma qaana safaarada hadaan laga soo xiriirin taasoo badidin kartaan laakiin cid kale oo nala soo xiriiday ama aan maqalnay inay dadka kala soo xiriireen arrimahaas ma jirto safaaradu maxay qabatay markaa والله هذا إلا سبب سوى كل شيء تدابرين تدك إن حافظة بيكسر سعر تودك كوب أبومي بيكون عاون زين لصوص سعره. مرجع حاجة جيني سيدتك. إن حافظها واحد جيني دك إن الحافظة ينحن نشيد اللي هي أداة لانتاج حتى سيريا ضوء حفرين كله هو حفران تبدأ كله صومالي ده وحفران ما أنت واحد مثلا شيء يكون أكثر. markaad leedahay dadka go'doomay ma dad uun dagaalka socda aawadii bixi kari waayayba mise waa dad cid gaari doonayso iyaga la laynayo ma walaal wax Soomaali ahaan inaka raadinaya ama inaka dibaato loo geysanay labada dhinacba ma jirto muddo dheer boy marka dad badan oo waxa jirtay ya okay soco dadkaas doomay waxa weeye hadda dibaato ka jirto oo dibaato hadda ciidamadii dawladda gacanta ku haya laakiin dadkii mara ka soo bixi kara labadii ciidan baa isor fadhiya saa darteeda dadkeena ku go'doomeen oo xaafadda ka hadla la-aan iyo biyo la-aan baa ka jirta muddo hadda ku dhawaada wararka qaar baa waxay sheegayeen in dadka meydkoodii qaar ilaa hadda aan la aasin Soomaalida ah oo dhowr casho ka hor la dilay maxaad warka haysaa
way jirtaa hadda taasi sababta qofba waxa la sheegay wiil la dhaho Abubakar Tamboyo Allah yarxamasho 3 casho ka hor dhintay meedkiisa wuxuu yaalaa meel ay wada mid la deli karay oo ay labadii ciidan dhexdooda ah ma jiraan wax kale oo dhaqdhaqaaqa oo hadday tahay hay-adaha qaxootiga ee caalamka iyo hadday tahay hay-adaha kale iyaguna gargaarka cid usoo gurmatay dadkan Soomaalida ah oo idin og ama hadday noqoto Red Cross-yada iyo ururka bisha cas ee Islaamka iyo ma jiraan cid ka shaqeynaysa dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa wallahi wax si gaar ah Soomaalida loogu qabanayo meedkiisa laakiin waa wax weey wax guud oo dalka qofka dalka u dhashay iyo dadka kale ay ka siman yihiin warna soo gaadhaya waxay sheegayaan in dadka Soomaaliyeed ee go'doonsani maadaama ay meelaha qaarkood ku go'doonsan yihiin ay gabaabsi yihiin ama go'een waxyaabihii qutul daruuriga ahaa ee qofku u baahnaa sida cuntadii iyo dawooyinka oo kale dadkii soo qaxay ee xaafadaha dhibaatada ku jirtay xaafada hadda go'dooman waxa weeye xaafada Dhaxurna oo waxaa laga yaabaa in la igu yiri ma 19 qoys oo kale ku jira dadkii intii badnayd way ka soo baxeen laakiin hadda xaafadaas oo kale wax warbixina kama bixin karo ma dhihi karo laakiin dadku way nabad qabaan dhowr jeer dad baa ka soo hadlay oo meelo waxay tagaan telefoonka ka baxay badii telefoonka ay soo go'aan min ciriga dhow laakiin xaafada مثلا كل oo kale dadku aad bay uga mahad sheeganayaan dadka deriska ah waxay dhaheen yani hadda dadka qaarkood waxaa soo saaray deriskii baa soo saaray oo banaanka u soo saaray labada ciidanna way caawinayaan run ahaantii dadka qaarkood waxay dhaheen waxaa lasoo gudbiya ciidanka kasoo horjeeda dawladda markii dambena waxaana lasii taagnay ciidanka dawladda dadka yani labada dhinacba caawimaad ay ku helayeen marka dadkii xaafada tan ka soo wareego kale waxayna dhaheen habeenkii xilliga safarta oo kale waxaa noo imaan jiray dad baa ama xilliga afarta oo kale heeraha deriska ama rag baa noo yimaada cunto wada ayagaa noo keeni jiray cuntada oo na siin jiray wixii kaalmay waxaan u baahano adigu Sahra ahaan imika xagaad ku sugan tahay anu waxaan joogaa magaalada Dimashq la dhaho xaafada Masaakin Bariga marka xaafadaad joogto wax dagaal kama jiro والله سو كثير دجال كحافظ الله قابون يبرز لبضع حافظات بدجال كبدي وبدني هاي وأنا لبضع حافظات نقولش جو عن أنا في يعني نهاية دينا لبضع حافظات كوش جاء من دمشق مكة لبضع حيوان لبضع حافظات موجودة بالرؤية لبضع حافظات لحافظات دجال كسر لكن حافظ ده واحد دجال يبقى أول سنة كتير aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sahra Maxamed Ismaaciil oo aan ka wareysanayay magaalada Dimashq iyadoo ka warramaysay xaaladda dadka Soomaalidu ay ku sugan yihiin waddankaasi Suuriya